guddoon ahaan arrintaas waa iska hadalnay markaan fiirinay dadka meelaha ku kala maqan yihiin markaan ogaanay waxaa noo soo baxday in ballanta laga dhigo 12 bisha maanta kooga ah 12 bishan xildhibaan kasta oo golaha shacbiga baarlamaanka tobnaad ku jiro inaysan maqnaanin haddii wax maaragtay duruuf gaar ah oo loo garaabay haddaysan jirin xildhibaanada waxaan u jeedinaynaa shirkeeni kan ku xiga wuxuu qabsanaynaa haddii alle idmo 12 bisha Juun yaan soo imaanaynaa shirkaas xildhibaanada dibadaha ku maqan dalka gudihiisa ku maqan waxaan leenahay maalintaas xildhibaanada inay xadar soo noqdaan arintaasan jeedinaynaa xildhibaanada sharafta leh maalintaasna waxay noo noqon doontaa qodobadii maanta naga baaqday inaan ka doonno sababtaan u yeelnayna waxaan ogaanay xildhibaanada qaarkood inay safar dheer isaga jiraan marka marlabaad waxaa maartay baarlamaanka sharaf u ahayn intaan shir iclaamino haddana koorumka yaraada la yiraahdo sharaf inooma aha 12 bisha Juun ayaa shirkaan ku xiran qabsanaynaa xildhibaanada dibadii dalka joogana taasaan u soo jeedinaynaa xildhibaanada joogana maaragtay ayagana waa idinku mahadcelinaynaa hal isu dulqaato dhinaca guddiyadana waxaan bilaabi doonaa ayadana insha Allah mar allaal markii xukuumadda tiradeeda la dhiso arrintan meel fuushana waxaan bilaabaynaa dhismihii guddiyada dhinaca xukuumadda miisaaniyadii waa diyaariyeen ayagana waxaan leenahay ka hor intaan maaragtay 12 Juun la gaarin inay miisaaniyadda soo gudbiyaan xukuumaddan ayagana taasaan u jeedinaynaa muddadeeni waa 12 Juun markaasaan soo imaanaynaa fadhigeena maanta waa noo xiran yahay aad iyo aad